qaadku ma khabiith baa mise waa tayib bal urtiisa eega meelaha lagu qayilo bal waxa ka baxaya eega ma wax nafta wanaajinayaba oo qofka qalbigiisii dejinaya oo khushuucu ka qaadaya qof iyo tumaaniina xasilooni iyo deganaansho ma wax qofka qurxinaya mise wax qofka fool xumaynaya bal qofka qayila wejigiisa isbedelka uu ku sameeyay qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhahayn jidhkiisa kiilo kasto ka midi inuu 0.8 milligram of cathinone uu qaato mesela ninka 70 culayskiisu yahay 56 milligram cathinone buu u baahan yahay sidoo waxaanaynu sheegayno dhan uu u gaari karo ama uu samayn karo mushkilad weyn buu qaadkii lagu hayaa dhammaan dhinacyada dhan mushkilad ka yahay dhinac dhaqaale dhinac qoys dhinac muxuu akhlaaqiyeed dhinac caqiido dhinac cibaado dhinac wal oo la eega qaadkii mashaakil buu noqday cidiba iskumay khilaafin culimada islaamka jaadku inuu xaraan yahay xaraanna maxaad u haysataa geela reerka adoo soo dhaco kale weyn haddaad marqaantood maanta mijin cunto iyo haddaad laba awr soo dhacdo waa isku mid ma rumaysanaysaa iminka sheekh maxamed aadan wuxuu ka warramayay wiil hooyadii qaad weydiistay shalay oo ay tidhi hooyo ma haya lacag oo kow kaga sii liajli qaad mijintaada ay tidhi hooyo lacag ma haysto ninka qaad ka daafacayo hoosuma dayne doxoriyo hanfade waalanoo dawdara tahaye shantii diinta loo soo rogu dumiyey liidiyow haddaba aynu si fiican u dhagaysanno barnaamijkan oo ka warrami doona sida aa arkayseen culimada iyo ganacsatada iyo suugaanyahanadu waxay ka sheegeen oo ay ka yidhaahdeen qaadka dhibaatooyinkiisa iyo waxyaabaha laga dhaxlo ee daawasho wanaagsan وبأحكام صريحة ارتضاها ذو الجلال فاتبع هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي